madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa shir gudoomiyay kulan ay magaalada Garowe ay ku lahaayeen xubnaha golaha wasiirada ee Puntland iyadoo kulankan uu ka qabsoomay wasaaradda maaliyadda Puntland ee magaalada Garowe madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cali ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka dalka Soomaaliya ayaa shirkan ka qayb galay muhiimadda shirkan loo qabanayay waxa kamid aha xoojinta amniga horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka xoojinta wada shaqaynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka iyo horumarinta adeegyada bulshada oo ay ku howlan tahay dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa markii uu warbixino uu ka dhageystay qaar kamid ah xubnaha golaha wasiirada ee Puntland waxa uu sheegay inay sii xoojiyaan xiriirka ay la leeyihiin dhigooda wasiirada federaalka Soomaaliya waxaana madaxweynaha uu soo hadal qaaday in dalka Soomaaliya uu u baahan yahay wada shaqayn dhab iyadoo mas'uul kasta oo xil u haya ummadda Soomaaliyeed looga baahan yahay inuu xil iska saaro sidii dalkan loo horumarin lahaa dhaqaalaha oo dalka soo gala oo magaca Soomaaliya lagu keeno kaliya ma laha meel gaar ah ma laha dhaqaalahaasi waxaa loo asteenayaa guud ahaan baahida dalka ka jirta maxaa yeelay adeegay ka mid yihiin dadka loo adeegaya ka mid yihiin waxaan idin sheegayaa madaxweynaha Cabdiweli wax kale galama hadlo boqolkiiba 90 conversationkeenu waa intaas waxaan ummadda Soomaaliya loo keeno anaga qaybteena meeday baahi badan baan qabnaa hawlo badan oo development aan u baahannahay waxaan u baahannahay in qaybteena halkaas la soo dhigo runtii awal wax badan ma jirin hadda waa bilowday insha Allah waxa bilowdayna waa soo gaarsiinaa Puntland iyo guud ahaan dalka insha Allah dawladda yiraahdo qaar kamid ah xubnaha golaha wasiirada Puntland waxay madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Farmaajo ay ka xog wareysteen xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo qorshayaasha ku aadan horumarinta arrimaha bulshada oo ay ku howlan tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya Umar Maxamed Somane Universal TV Garowe